السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. waxaana inoo xigi doonaa waana ku saabsan muhiimadda ay leedahay waxbarashada iyo sidoo kaleeto muhiimadda ay leedahay alla kacabsiga iyo sidoo kaleeto xadiis uuna ku qoran yahay walaalkeen cali yaxye xasan oona ka mid ah marti sharafta fadhisa tarabuunka fadlan cali yaxye xasan hadduuna maqlaayo tarabuunka ha yimaado. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد إن شاء الله تعالى waxaan ka hadli doonaa mowduuc ku saabsan maalinta yowmu cashuura. maalinta yowmu cashuura nabigeena Muhammad sallallahu alayhi wasallam waxa inuu jideeyay in aan soono maalmo aan ahayn maalmaha barakeysan ee bisha Ramadaan. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayadoo ka hadlaya maalmahaas ayaa maalinta waxay noogu beegan tahay maalinimada biri ah. haddaba maalinta cashuura aan ka barano saxaabigii weynaa ee Mucaawiye bin Abi Sufyaan ilaahay raaliha ka noqday. wuxuu yiri Mucaawiye, waxaan maqlay rasuulka eebe nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee isagoo dhahayo maanta waa maalintii cashuura la idinkuna qorin aniguse waan soomi, qofkii doonaha soomo kii kalene ha anfuro. iyadoo maalintaasi ay tahay maalin uu soomi jiray walaalkiis nabiyullaahi Muusa calayhi salaam, waana maalintii eebe uu ka badbaadiyey Fircoon. maalin wanaagsan oo ilaahay kaga badbaadiyey nabiyullaahi Muusa calayhi salaam iyo reer banu Israa'iil cadowgoodii. markaas ayuu soomi nabiyullaahi Muusa calayhi salaam. kolkaas ayuu nabigu ku yiri, aniga ayaa idinkaga xaq badan nabiyullaahi Muusa. markaas ayuu soomay, dadkiisana amray in ay soomaan. maalintaas cashuura waxay ahayd maalin ay yahuuddu weynayso, ciidna ay ka yeelato. kolkaas ayuu rasuulka sallallahu alayhi wasallam yiri, sooma idinka wa muttafaqun calayh. soonka maalinta cashuura oo uu yiri wuxuu dhaafayaa dembiga sanadkii hore. waxaa jirta riwaayad kale oo oranaysa soonka maalinta cashuura waxaa xisaabsanaya in la ii dhaafayo dembigii sanadkii hore. dadka aan maanta soomin waxaa u furan inay biri soomaan, maalinimadan axadan ay ku xijiyaan. rabbi ha ina waafajiyo maalmahaas khayrka badan insha Allah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إنها qudbo ku saabsan muhiimadda ay leedahay maalinta soonka oo cashuura. Waxaan ku xigi doonaa barnaamij ku saabsan geeraar. Soomaalida aad ay u weelaan geeraarka, waxaana soo jeedi doonta gabarta lagu magacaabo Caasho Daayir Maxamed. maamulkeeniyo runtii qafna ku qaali baa tahay, xaqaaga marna aniga oo xaqireen. runtii haddii aan ka hadlo maamulkula mida maan arkin. hadal wanaagaada, naxariistaada faraha badan, qeyrku hadalkaada, qalbi furnaantaada, xarafka magacaada ugu horeeyo afkeenu marku uu ku dhawaaqaayo xaada ayaa noodi istaagto. maanta waa maalin farxad lehe, hal mar isla kaca, hal mar isla dhaha hambalyo hambalyo hambalya. maamulkeeniyo maanta iyo beribe allow ku xafid. aamiin aamiin aamiin. maxamed oo isku qorneed geeraar kana mid ahayd ardayda dhigata iskuulka New Banaadir. haddana waxaan nooga xigi doonaa gabay, waxaana inoo soo jeedi doona insha Allah hadduu Ilaahay iimino Hodan Cabdicasiis iyo Xamdi Salaad. uga taga dadkiisa kii buuradaha kiyo daaraha adduunyada aakhira ka doorsow dadka kii hanuunshe qalbigiiyo damiirkiyo caqliga daweeyow
diintii caqiidada nabigii u tiriree taaha yaa xabiibii kuwaana madaale adduunyada dusheedana in jalaalka mooye cidba looma daaye kii dhaxalka dooga ah iyo diin xaniifo ah aakhiro daliilu ah noloshana dastuuru ah dunida uga tagayo geesigii dagaalka ow deeqsigii waxbixinta ow ducayii salaamba ha noqdeen dushaadee kama daala weligay digrigiiyo xuskaage adduunyada dusheedana dad intuu ku nool yahay dumi maayo nuurkii aadamnada keentee dusha kuuma diidine ay hooyo dihatee eebbaa ku doorto xumo kaa dahirayo magacaaga dahabka ah tukashada salaadiyo shahaadada lagu darayo digrigaaga weligay dananiyoobi maaye kuwa daaqiga ahee magacaaga diidee ka damqada xuskaage udulqaadamayne diririyo carbaynu nahay kuma duuli karayaan darajada rasuulkee dayibkaan jeclaayo daahaya xabiib xamdi salaad oo isku welinaya tarabuunka soo jeedinaya gaba aad iyo aad u qiimo badan haddana waxaa nooga xigi doono maadaama ilaalinayna gender balancing wax loo yaqaano oo laba gabar aan wacnay dadka qaar waxay isdhahayaan wiilasha meesha waaba looga badan yahay loogama badnay hal wiil baan soo wadnaa cabdirasaaq cali salaad oo asna ku qoran gabay maamuusa deerwaalasiin magacna loo yeelin mansabi hadday darajo sarciga ku milkinayso qof mudan baa milka loo yaco lagu musiisiyo inuu yahay qofkii macalin aan muran ka taagnayne malaayiin qof buu soo basha oo muraayadee geedaha magoolaya tijin ona maxiiraay masagada waxay quud u tahay muruqa waxyaaye aqoontana naftaa maashageliso lagu macsuumaaye cilmi baa ka soo baxa oo lagu majartaaye madaxdii raggan tala qaatee xilka loo magacaabo isagaa duruustii macaaneed horay u noo siiyey aad iyo masiixa kaasna wuxuu ahaa ardayga lagu magacaabo cabdirasaaq cali salaad oo asna ka mid ah ardayda wax ka bartay iskuulka new banaadir maadaama lagu caajisay geeraarkii iyo gabaygii talo waxaa markaan indhaha aan ku eegaynaa dhiiragelin ama muhiimadda ay leedahay waxbarashada ayuu soo jeedi doonaa walaalkeen iyo martishaafta barnaamijka axmed mukhtaar maxamed فضلا مسرح بشروية أحمد مختار محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين وأن سلام يا أبوهرين والدين تا معلمين تا مامولكا يا أرضي قروح بدن سكول كان أما دكسي كان هو سلحي سرع نيو بنادر إن أنا قهرت ضد بدن إجا أقوم بدن ويجران waxaan soo istaagay waxay tahay bisraayay inaan kala hadlo oo waxyaabaha ku saabsan waxbarashada ugu horreyn horta waxbarashadu maxay tahay waxbarasho waxaa jirto waxyaabo badan oo lagu qeexi karo balse waxa ugu muhiimsan ee aniga maskaxdayda ka guuxaysa waxay tahay waa ka bixidda mugdiga iyadoo la aadayo xagga dhanka iyo iftiinka midaasna waxaan ka daliishanaynaa qof waliba ma jeclo inuu ku jiro mugdi wuxuu doonayaa inuu tago xagga iyo iftiinka waxbarashadana waa mid aad muhiim u ah sidaa wada garanayno maasha Allah Soomaaliya sanadadii hore waxay kaga duwan tahay sanadahani in ay farabadanayaan maasha Allah ardayda sidoo kale la heli karo dugsiyo waxbarasho oo hoose iyo dhexe iyo sare anagoo tixgelinayno markii midaas quraanka Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaa ku jiro aayad dhahayso hal yastawi alladina ya'lamuuna walladina laa ya'lamuun mismiyihiin dadka wax bartay oo wax yaqaan aqoon-yahanada ah iyo kuwaan wax baran jawaabta meeshaas ka cadna waxay noqonaysaa waa maya ma sinna marnaba ma simnaa karaan qof min aadinka intuu nool yahay waxaa ku jirto ruux waana ruuxda loo yaqaano ee rasmiga ee nafsada ah waxaa jirto ruux kale oo bini aadinka dhan ayna ka wada sineen بس هلي كرو قفكي wax bartay inayna xaflada quruxda badan aan noo diyaarseen iyo sida aad u dhahdeen kaliya ma farxaysaan waa in la farxaysaan xaflada ayaan idin dhigaynaa aad ayaad ugu mahadsantihiin waxaan leeyahay soo dhawaada kun iyo koo jeer waxaan idin hambalyeynaya muhiimadda ay leedahay ama dhiirigelinta ay leedahay waxbarashada waana cabduqaadir xasan maxamuud Topic about encouragement. First here I say create all the girls with have dignity.
It's here comes, I say, peace of Allah be upon you. Another one, I say, brothers or my sisters, please take you the mad faith. Today is here people finish the university world role model, and they have in the university world role model, and they have been studying for a long time. Finally, they have born through their when these people stay here on their will reach the level but they need. Role model, they have rule business and the consistency informative because anything it is was small Jadil Garen on the back on his mother to cry to say you are important here will go tomorrow to you goodbye and good life. aad ayuu u maasiyay kaasna wuxuu ahaa arday kamid ah ardayda dhigata schoolka New Banaadir Primary and Secondary School oo inoo soo jeedinaya topic ku saabsan dhiirigelin sidoo kaleetana mahadnaq u sameynaya ardayda difaacati bogooda sidoo kaleetana ka qalan jibisay jaamacadda Soomaaliya qaadatayna first degree oo university oo loo yaqaan bachelor degree waxa inoo soo socon doona barnaamijkeeni geeraarada iyo gabayada sidoo kale waxaa ugu cid doona anagoo ilaalinayna dheelatirka barnaamijka wiil ayaa loo yeeray wiil kale ku xigay sidoo kale waxaa ilaalin doona dheelatirka maadaama dheelatirka ilaalinayna waxaa ugu cid doona markaan gabar loo magacaabo Xaawo Cabdicaziis Warsame macalinkeygii Yurub dabtii ruuxi u qaali baadaay ruux kalena kulana simi karo macallimiinta oo idilada ugu sareeyo waxaa tahay macallin igu qaaliya marna aan iloobi karin martisaarkaaga hadalkaaga naxariista leh qalbi jilcanaantaada sifooyinkaaga toosan runtii waxaad mudan tahay macalinkaygiio in laguugu daysto baan ku shukrinayaa oo isiiye macallin wanaagsan Allah yow ii daysa macalinkayga amiina aad iyo aad ayay u mahadsan tahay taasna waxay ahayd arday kamid ah ardayda dhigata schoolka New Banaadir Primary and Secondary School oo inoo soo jeedinaysay geeraar ku saabsan muhiimadda uu leeyahay macalinka iyo doorka uu ugu jiro bulshada sidoo kale waxa inoo xigi doona gabar kamid ah gabdhaha oo soo jeedi doonta gabay magaceedan waxa waaye Ilhaan Saciid Farax adduunyo yaxaan ma jiro xurmay adiga godgalay xaqii oo dumar lahaa la xaalufay oo maarin dunidu waagii xanneed dumarka xeer buu lahaa xanaaneen buu lahaa dad xooriye buu lahaa weliba oo in xawaashi ka dooran jiray waxaas hadda xaryamay duul xayi iyo naxariis shood gebi iyo aqoon tacadud nagu xoogan iyo dhib iyo xanaf maan qabnaa helalka ragga noo hayana shish bay noo arkaan xasuuslayda aragoo miyaynan xaawalii ku dhalin weliba xilo ku ahayn xiskiina miyaynan dhibayn xasuuqana lagu wado xadgudubkii sharaf dhaca anaa xaqdariya dhib qabo intaan geli lahaa xabaal walaal ifka igu xoreey xabadda qaadiy difaac afka xoog noqon karee xayaabada iga dulqaad iyo maamus la'aan markii la xijaabtay xawaali ii la galo xisaabta Allah dambay